maanta way ku beegan tahay maalinta xorriyadda saxaafadda ee 3 May oo loo asteeyay maanta waxay la joogtaa Xayaad Naaleeye oo kamid ah bahda telefishinka qaranka Xayaad markii hore Cariib baan ku soo dhaweynayaa bal ka waran maalintan maxay ka dhigantay aad baad u baahsantahay ayaan shulac maanta waxay ka dhigantay maalin weyn oo farxadeed maadaama ka tirsanahay bahda saxaafadda Soomaaliland aynu dabaaldegayno maalinta saxaafadda adduunka Xayaaday waxa ka mid tahay habla wariyaasha inta badan ku jira miidiyaha xilalna ka soo qabtay dabcan bal ka waran caqabado intee lag ba ka soo maray saxaafadda maxaad hablaha u diraysaa fariin noocee ayaanay horta hadii la yiraahdo waqtigan caqabadihii soo maray tiriya lama tirin karo shaqo walba oo la galaana caqabad iyo waxay leedahay dhibaato hor leh marka doonaysid inaad jaranjarta taagantahay ka gudubtid oo jaranjarta ka sareysa aad u gudubtid mar walba caqabad waad la kulmaysaa ha yaraato ha weynaato laakiin waxa mar walba muhiim ah inay ku muuqato hadafka aad leedahay ay ku muuqato dhabar adeegaaga iyo kalsoonida aad isku qabto taas ayaad kaga gudbi kartaa caqabad kasta oo soo marta mar hadda hablaha miidiyu waxay ku yiriyeen xilalka miidiyaha iyaga maxaad leedahay waa run way ku yar yihiin oo waa farqo tiris iyaga waxaan leeyahay halka taagantihiin kor uga qaada talaabada halkay nimadu joogaana gaara mar walba waxa weyn ku qaban karo waad qaban kartaa mar hadii miidiyaha la wada joogo mar hadaad wareysi qaadayso banaanki baxayso mas'uuliyadana gabdhaha ku wanaagsan baan anigu aaminsanahay waxaan kaloon ayaan raacinayaa maxay tahay hadda wada ogtahay oo soo programkan soo qabanqaabsan maanta ka qayb qaadanayno waqtigii la bilaabay inaan kaliya tahay waqtigii ku xigay 2 hablood baheed maanta taaganahayna waa 4 hablood waliba hoggaanka ugu sareeyana habluhu ay kamid yihiin waxaan leeyahay hablaha sida inamadu ay u sameystaan TV ay leeyihiin meelo production ay leeyihiin inay habluhuna ku dhiiradaan ay sameystaan iyagu noqdaan dumar loo shaqeeyo oo rag u soo shaqo tagaan halkan inagu rag uga shaqo tagno taasina aaminsanahay xilalkuna sidoo inanka lamu dhalan ninka meesha leh isba wuxuu xotay kartidiisa iyo shaqo wanaagiisa muujiyay adna kartidaada iyo shaqo wanaagaaga muuji talaabada kor u qad caqabadaha ka hor yimaadana hareeraha lama eego waa imka matalan oo kale faraska iyo ama dameerka kale dhinacyada wax laga geliyo inuu dhinacyada u daymoonin marka waxa la yiraahdaa dhinacyada dhagaha wax iskaga nabo dhaliilaha iyo kelmadaha aan wanaagsaneyn niyad jabka keenaya dhagaha ka xidhaba leh hore u socda